waxaanu ka nimi magaalada Djibouti oo shir wada hadal uga socday labada guddi wada hadalka Somaliland iyo maamulka Khaatumo waad ogtihiin oo 8 qodob ka soo baxay oo warbaahinta aan gelinay lagana wada warhaya insha Allah bidmillaahi kariim fadhiyaal ka dambeeya iyo kulamo ka dambeeya oo aanu yeelanayno aanu jecelahay inaanu ku guuleysano yaanu rajeynaa inay dhacdo iyadana si fiican iyo jawi fiican baa shirkaas kuna bilaabmay kuna dhamaaday haddii bedelkeeday dawladda Djibouti oo shirka wuxuu ahaa naguna soo dhaweysay naguna haddii bedelkeed sharaftay isuna kaaya keentay wixii tasiiraadaha oo dhan noo fulisayna aad iyo aad baan madaxweynaheeda iyo maamulkeeda kalaba ugu mahad celinayna xubnihii aanu ku wada hadlaynay golaha ka yimi maamulka Somaliland oo si aad iyo aad u sharaf badan fadhideen sidoo qodob soo saarteen intooda badan waxay u eegayeen kuwii aad sabab ku saarteen meel oran karo mad ka wareegaysaan inta qodobada masiiriga garan waayeen 12 qodob ee ka soo baxay shirkii Addis Ababa waxay saldhig u yihiin wada hadalladayada kuwa kasta oo la gaaro muddooyinkan dhow oo dhan waa inay saldhig u yihiin kuwii hore lagana bilaabaa maxaa inoo qabsoomay maxaa inoo ka qabsoomi waayay maanta aanu shirkii Addis Ababa teginay iyo maanta waa farqi weyn baa u kala duwan xaajoodka wax badan baa ka dhashay suuragal may noqon jirin maanta inaanu ragga kan iyo airportkan ka soo degno may ahaan jirin wax macquul ah maantana waad aragtaa hadalkaas waa mid aan taageersanahay waa mid loo baahan yahay waxaanu taageersanahay wada hadalka iyo heshiiska Somaliland iyo maamulka Khaatumo boqolkiiba boqol waanu taageersanahay waana raacsanahay